السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داوديال وعنا وناكسن كسور دوادا وربحين كسابسن وصوتا أي دولة إثيوبيا وديدين وذا هذا اللفرط ماملكة تيغريغا كاليها رئيس الوزراء أبي أحمد ayaa sheegay in dawladda Itoobiya inaysan la hadli doonin hogaamiyaasha waqooyiga gobolka Tigreega si meesha looga saaro khilaafka halkaas ka jira. Sidaas waxaa BBC u sheegay kaaliyaha ra'iisul wasaaraha Abiy Ahmed. Maamo Mehertu wuxuu yiri marnaba lama xaajoonino dambiilayaasha, waxaan horkeenaynaa cadaaladda, ma aha inaan miiska wada hadalka la fariisano. iyadoo gobolka Tigreega uu wali ka socdo dagaalka u dhaxeeya ciidamada dawladda Itoobiya iyo maamulka Tigreega ayaa hadda waxa caasimadda Addis Ababa waxa gaari doona wafdi Afrika ka socda walow xukuumadda dawladda Dr. Abiy Ahmed ay sheegayso inay wax wada hadal aysan la gali doonin maamulka Tigreega. Colaadda gobolka Tigreega ayaa gashay isbuucii saddexaad waxaana wadamo badan oo Afrikaan ay dabada ka riixayaan wada hadal dhexmara dawladda Itoobiya iyo TPLF si colaadda loo soo afjaro. Madaxweynaha Koonfur Afrika sidoo kalena gudoomiyaha Midowga Afrika ayaa saddex madaxweynayaal hore oo Afrikaan u magacaabay inay dhexdhexaadiyaan labada dhinac. balse dawladda federaalka Addis Ababa ayaa waxay marar badan diiday baaqada loo jeedinayo inay wada hadal la sameeyso. waxayna la sheegay in ergadaasi oo saddex madaxweyne hore Afrikaan ay la kulmi doonaan oo kaliya ra'iisul wasaare Abiy Ahmed. Masar Mama Mehertu oo la taliye sare u ah ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed ayaa waxa uu BBC-da u sheegay in wada hadal ay ku haboon yihiin kadib marka ay adkaadaan ciidamada maamulka TPLF. markaas magaalada Addis Ababa ee Itoobiya waxa ku taala xarunta dhexe Midowga Afrika oo xarun diblomaasiyadeed tan ugu weyn qaaradda Afrika, waxaana halka ka bilaami doona dood adag oo dhexmari doonta xukuumadda Itoobiya iyo ergada dalka ay xulafada yihiin gobolka ku yaala.